agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Isaaq Maxamuud Mursal maruna xafiis booqasho Nankasaan iyo Meebanin ku warbiyay xaaladda caafimaad ee cisbitaalka degmada Xudur ee gobolka Boqol iyadana dhawaan meelasayti xarag lagu yaray cisbitaalka degmadaasi cisbitaalka degmada Yameba uu sahay ku seedan liid isla markaana dhibaato ka qabeen dadka ka dhaqan degmada Xudur ee gobolka Boqol iyadana dayactir iyo qalabeenba la ka suubi guud ahaan qaybo shalduma cisbitaalkaasi haddaba waa ku agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed oo nin ku warbiyow xaaladda caafimaad ee cisbitaalka degmada Xudur ee gobolka Boqol dhibaatada caafimaad ee gaar ahaan heerka lamaad ku jirtay wasaaradda caafimaadka wali soo bilayna qiimeyn September ilaa iyo commissiontii markii hayti iyadoo markaasay la ka daba galay meel raayis in habka ka fayla mas'uul fudud oo la qabado kormeel raayis guud ahaan xaaladda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka Xudur in lagu shaqeeyay wasaaradda qiimeyntaas markii soo bidii wali samarhantii report-ka saytii iyo bulshada markaasi wali oo la xaqiijin nagatay August shileedii in meel raayis ilaa saddex ka dhamadeen adeeg heerka lamaadlaankiis marka iyadoo guud ahaan dhambal ka hoolanay laakiin wali la dejiyay meel raayis in sida dhaqsiga badan isbitaalka diblankii wasaaradda marka December 22 iyo waliba wasaaradda wasiirka caafimaadka soo hogaamiyo tiimkii oo dhan aan xukuumadda dib u saartay Xudur walana ujeedka hay isbitaalka in dib loo furo iyadoo markaasay isbitaalka la helay taageero dhinaca daawada shaqaalaha iyo dhinaca kastaba meel raayis ku dhameystiran saasoo kale isbitaalka wali lagu qalabay guud ahaan qalabka wali la saaray in qayb kasta unit kasta mise shaqadii la falay in qalabka la helo iyo kumadda taqriibta shaybaadka meel raayis in la shaqeeyay kumadda raajada in la shaqeeyay kumadda taqriibta bukaan jiifka in la shaqeeyay kumadda in qaybihii bukaan socodka la shaqeeyay kumadda meel raayis in oo dhaqaatiir dhinaca daawada iyo qalliinka khibrad gaar ah in la lagu shaqaaleeyay isbitaalka wali furmay markii dib in shaqeeyayna la ku bilaabo 2040 ilaa hadda isbitaalka ma shaqeeyaan waa isbitaalka dhulshay dayactirkii iyo walaay markaasay community iyo DDG suubiyan ku sokow isbitaal isku hirana wali hay lambalanka aawayaan marka 28 bil meel raay December isbitaalka wali buuxa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dib furi xarag jarlan suubi shaqaalaha iyadoo shaqeeya Soomaaliya raayis 24 saac meel raayis shaqaalaha shiftiga shaqaalaha soo shaqeeyo iyo waliba wasaaradda ilaahay suurtageli waana isbitaalka Xudur waliba shaqeeya tobankii la hadalay si aad xoog badan oo waana ka filan in meel raayis ka dabool caafimaadka qiimaha problemka dhinacaas ku jiray agaasimaha Yameba kooyay xiluus burbursanay cisbitaalka geekanuusaya ko guud ahaan bandhameystiran agabkii lanka tala galay cisbitaalka degmadaasi Hinda Cali Cismaan telefishinka koonfur galbeed